jaamacadda Frontier gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada qaybaha kala duwan macallimiinta shaqaalaha ardayda qalin jebinaysa waalidiinta marti sharafta bahda saxaafadda qof walba oo meeshan jooga waxaan ku salaamayaa anigoo ku qiimeynaya magacay masabka meeshan ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan jeclaan lahaa in waqti badan la joogo shaqooyin badan aan leeyahay darteed ayaa lagu soo hormariyay insha Allah marka hore waxaan leeyahay hambaliyo ardayda qalin jebinaysa hambaliyo maanta waxaad guranaysaan mirihii aad soo dhabar adeegteen muddadan faraha badan ee aad ku soo jirteen waxbarashada oo duruufo badan aad wax ku soo barateen maanta waxaad joogtaan guushii beri waxaa laga yaabaa inaadan aadaynin jaamacad laakiin aad ku fikirayso ma hor baa u wadataa waxbarashadaada mise waxbaad shaqaa samaysataa maanta caalamku wuxuu ka gudbay haddii aad shaqo raadinayso in aadan noqon shaqaale noqon loo shaqeeye maxaa yeelay hal abuuro noqon shaqo samayso adiga ha laguu shaqeeyo meeshaa wax ka qaadan lahayd jaamacadda waxay ku bartay qaabkaad u shaqaysan lahayd wixii lagu baray adiga shaqo abuur ku samayso shaqaale qoro saa laguu shaqeeyo guushii marka waa gaaraysaa insha allahu tacaala ha noqoto dad shahal abuur yeesha ardayda mar walba qofka markuu jaamacad ka baxo dadka waxay aad ugu fikiraan waxay leedahay shaqa ma helin shaqa aan raadinayo waxa laga yaabaa sanado badan ay kugu qaadato laakiin markaad ku fikirto laba iyo saddex waxaa soo barteen inaad shaqa abuur ku samaysaan waxaad ku fikirtaa meeqa qof aad shaqaalayn kartaa marka taa ha lagu talagalo mar walba insha allahu tacaala taas markaan idhaahdo anaga ka wasaarad ahaan jaamacadaha dalka ka jira waxay noogu jiraan meel fiican maxaa yeelay ardaydan magaalada dugsiyada sare uga baxa maalin walba ay soo kordhaysaa waxaa laga yaabaa in sanadkii ay soo baxaan dugsare ay ku baasaan arday ka badan 20,000 oo arday haddaan ardaydaas loo heli lahayn jaamacado ay wax ku bartaan xaggee aadi lahaayeen marka bahda waxbarashada way dadaaleen ayadoo dowladlaan ay tahay ay abdalada waxbarashada soo bilaabeen kadib jaamacada la furay saas ay ku socotay marka dadaaladaas private ka soo qabtay waa wax maaragtay aad loogu mahadiyo laguna dhiirigeliyay mar walba marka aniga waxaan leenahay bahda jaamacadda Frontier hor u socdo dadaasheen maxaa yeelay dhalinyaro ku fikirtay inay mustaqbal arday u sameeyaan marka hore laga soo bilaabay macad college-ka English-ka lagu barto kadibna ku fikir inay jaamacad u sameeyaan dadka marka waxay ka mid tahay jaamacadaha aan ka warqabo Frontier oo dadaalka badan sameeyay mar walbana aan isla joogno gudoomiyaha ku horeeyo Ustaad Yuusuf oo dadaal badan u sameeyay mar walba idinkan waxaan dadaalka idin geliyay inaa ka soo baxdaan arjayna insha Allah sidaad la socotaan wasaaradda waxbarashada waxay ku howlan tahay tacliinta sare gaar ahaan guddi la sameeyay guddiga tacliinta sare ama Higher Education Commission guddigaas wuxuu maaragtay sameeyay dadaalo fara badan oo uu jaamacadaha in lagu tayeeyo ku fikirayay in jaamacadaha in la qiimeeyo waa ogtihiin ciddii la socotay guddigaas jaamacadda Frontier way soo kormeereen way yimaadeen kulay natiijadii ka soo baxday kormeeradaas ay ku sameeyeen jaamacadaha oo dhan dhawaan waa la shaacin doonaa waana maqli doontaan insha Allah jaamacadda Frontier waxaan u rajaynayaa inay ka mid noqoto jaamacadaha horumaray insha Allah marka dalka waxaan ardayda ku guwaabinayaa dalkan idinka iska leh meel aad wacaaraysaan ma jirto ilaaha Soomaalida ka dhigay haddii waxbarashadii dalka idinku keenay maanta wax loo tahriibaa ma jiraan haddaa ku fikiraysa tahriib dalkay waxbarasho taalaaye ka faa'iidayso wax dad tahriib wax ku keenay ma jiro maanta guryahan lagu dhisay magaalada Muqdisho haddaa u fiiris daarahan dhaadheer ma dibadda laga soo shaqeeyay lacagtooda inta badan waa dad ku fikiray dadka ganacsi magaalada ku sameeyay wax gashtay ayaa inta badan dhistay marka
dalka waxaa lagu dhisi karaa inaad magaysato dalkaada kadibna waxaad baratay aad maartay ku shaqaysato si aad horumar u gaarto adiga iyo carruurtaada iyo dadkaagaba maanta magaalada muqdisho waxaa arkaysaa arday buwaag wadata hadda arki lahayd in maaragtay qof wata qori maanta buwaag la wato jaamacadii ay xareeyeen arday fara badan waxaa og tahay waqtigii dagaalada ka jireen dalka dagaaladii la soo maray oo ahliga ahaa idaacadaha marka la isguursanaya waxaa maqli jirtay maanta waxaa isguursanaya mujaahid hebel iyo mujaahidad hebel maanta waxaan maqlaynaa doctor hebel iyo doctor hebel isguursanaya marka taa waa horumarka aan gaarnay ee bahda jaamacadaha ay sameeyeen ay horumar ku sameeyeen anaga wasaaradda ahaanna mar walba waa taageeraan u nahay jaamacadaha wixii hool loo fududaynayna waa fudayd ayaan u samaynaa insha allah marka waxaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo hor u socda ardayahay waalidkana dadaalka idin sameeyeen ha la ogaado waalidka intaad kuu soo bixinayay lacagihii yaraa ee biilka wax lagaaga jarayay qaar waxaa laga yaabaa inay agoommo ahaayeen oo maaragtay aabbahooda uusan joogin hooyo ay soo korisay oo dhaqaalay ku bixis qaar waxaa laga yaabaa in hooyo ay dhimatay aabbo u joogay marka intaas in lagu fikero arday labadii waalid qofkay u nool yihiin alxamdulilah marka waalidka dadaalkay kugu soo bixiyeen maanta deynta lagugu leeyahay maba gudi kartaane qayb ka mid a ku dadaalayna waalidka u guddaan marka waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad hambalyo guulaysta jaamacadda Frontier-na hor u socod insha allah